muuqaalka laygare fadlan laygare walaalayaal laygareeya muuqaalka suuda badan u sii gaadho walaal laygare muuqaalka suuda badan u sii gaadho siina sheergare waqti kooban oon ku sugnayn goobtan oo ballantu ahayd in laga dhaqaaqo ayaa waxaa mar qudha iridda ka soo baxay madaxay ka mid ahaayeen maamulka gobolka Awdal iyo qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha bixiya adeegyada aasaasiga ah waxaa la gudagalay safaran waqtigaasi qudhaydu garanayn ujeedka uu daarana iyo xalka uu ku wajahan yahay wadada Boorama uga baxda jihada waqooyi galbeed oon waqti yar haynay kadib waxa aan gaarnay goob ay dadweynuhu isu abaabuleen soo dhaweynta wafdigan aan ka midka ahaa iyagoona lulayay caleemo sidoo kalena ku dhawaaqayay halku dhigyo ay ka mid ahaayeen waxaa aniga laftayda ii dhadhamay in ujeedka safarku daarnaa isla deegaankan waxoogaa kadibna waxaan xaqiiqsaday in qorshuhu yahay wanqal deegaan cusub oo hoos yimaada degmada Quljeed ee ka tirsan gobolka Awdal dadweynaha ku nool deegaankan cusub ee Geedarayle laftoodu waxay ahaayeen kuwa ku faraxsan soona dhaweynaya qorshahani wafdigan uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa waxa ka mid ahaa isuduwayaasha wasaaradaha waxbarashada caafimaadka beeraha xanaanada xoolaha deegaanka horumarinta reer miyiga iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda WH oo door weyn ka qaadata horumarinta deegaanada gobolka Awdal ugu horeyn qaar ka mid ah odayaasha dhalinyarada iyo haweenka deegaankaasi cusub iyo gudoomiyaha degmada Quljeed oo hadalka qaatay ayaa sharaxay qorshahan cusub iyo adeegyada aasaasiga ah ay u baahan yihiin in laga taageero beeshana waxa deegaanka wuxuu ka tirsanaan jiray deegaankani tuulada Shaqweys ay ka tirsanaan jirtay markii hore markay isqaadi kari waayeen cabashadoodii sidaasaan ugu garanay in tuulo gaar ah ay noqoto maanta waxaan daafuraynaa tuuladii gaarka ahayd muxuu ahaa Geedarayle inaan maanta joogno oo xafladeedii ku qabanno waxaan u baahannahay waxbarasho waxaan u baahannahay caafimaad waxaan u baahannahay in beeraha oo aad iyo aad u waxyeeloobay in wax la nagala qabto sida uu idin sheegay beeshani beel aad iyo aad u dareensan baa heedo dulsaar ku ah meeshaad ka soo leexateen la yiraahdo Sheekh Weys waan ku faraxsanahay sida ballaaran ee noo soo ajiibtay aad u timiday boqol aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadkuna aad bay mabsuud u yihiin waa barasaabkii koobaad ee soo booqda waxaan doonaynaa wixii gurmada ee loo tariyo in loo taro adigoo gudoomiyihiina inaad gacanta ku hayso hada hawshaana nala dhamaystirto haddaan nahay odayaashii beerahan dhammaanteed horta aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa horay baa beesha loo ansixiyay laakiin maanta waxaan u imanay waa wanqasheedii beeshan markaan ka warbixiyo xaggaa waxay xad kala leedahay leedhada mataana xaggan beel ay kolka horeba saar ku ahayd oo la yidhaahdo Sheekh Weys dhankaa waxay xad kala leedahay beesha Maraalay xaggan waxay xad kala leedahay Degmalaqas beeshu waa beeraley weyn oo ballaaran iyo xoolo dhaqato waxaan mudana gudoomiye ka doonaynaa adiga iyo waftidaadaba baahiyaha jira aasaasiga ah in loo foorarsado hadii alla yiraahdo waxna aad nagala qabato aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa gobol deegaankan cusub ee Geedarayle inta kadib waxaa hadalka qaatay madaxa xafiiska WH ee gobolka Awdal Cabdulqaadir Cali Bede oo sharaxay mashaariica ay ka fulin doonaan deegaankani cusub deegaankan maanta joogna ee Geedarayle haddaan WH nahay waxa aan ka bilaabi doonaa mashruuc 2 sano ah inaan ka sameeyno seerayn inaan ka sameeyno si xilliga abaarta ay xooluhu ugu baxsadaan waxa kale oo ballan qaadayna in ceelbiyood ay dadku biyaha ka cabaan insha Allah ta'ala ka qodi doona isagana waxaan sameyn doonaa maartay inaan shinni u sameeyno oo yaraan 30 gaaguri aan maartay deegaankan kale inta kadib waxaa hadalka qaatay isuduwayaasha wasaaradaha horumarinta reer miyiga iyo deegaanka oo ku hadlayay afka isuduwayaasha ka soo qayb galay munaasabadani waxayna tilmaameen waxaan deegaanka ku aaninaynaa bal sida hadda Jarmalka inoo wada inaan shinnidii iyo malabkii iyo kala oodashada dhulkan aan soo dhaxmarnay oo runtii aan ka wacyi gelino dadka mar walba oo iminka arkayso meel aan beer ahayn oo ood laga dhigayo waxyaalahaasaan runtii aan mar walba ku dadaalnaa oo horaan isku aragnay waxaan bulshadan isla garanay inay kala oodashada yareeyaan insha Allah ayna dadaalaan maanta farxad bay tahay in tuulo cusub halkan looga daafuro bulshada reer miyiga ee deegaankan Geedarayle oo ah dad wax qabsaday isku tashaday beesha iyo tuulada samaystay aad baan ugu faraxsanahay isuduwayaal kale oo naga maqan fariinta gaarsiin doona dhamaantay waxaan diyaar u nahay
annagoo team work ku shaqayn doona gacmahana isqabsan doona bulshada geedarale inay noqon doonto bulsho aad uga saa u tashata uga dhex muuqata deegaanada kale ee gobolka insha Allah taala. intaa kadib waxaa isaguna madashaasi hadalka qaatay taliyaha howlgelinta ciidanka booliska gobolka Awdal. qayb badan baa dirjeenaya deegaankiina ilaashada dhirtiina ilaashada amniga iyo nabadgelyada ilaashada wax aan amniga iyo nabadgelyada ka horeeya ma jiraan saadkana cid ku tukanayso bulshada quruxda badan ee halka taagna caynka ahaan mayso waxaynu ku qurux badannahay inuu ku dhisanahay masaajidka u camirayna waa amniga iyo nabadgelyada haddii amniga iyo nabadgelyada la waayo wax jiraya ma jiraan. ugu dambeyn waxaa madashaasi hadalka soo gabagabeeyay isla markaasina sheegay inay ka xukuumad ahaan door weyn ka qaadan doonaan horumarinta deegaankani cusub gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro. marada masaajid dhisateen horta waxa mirmaysaa meeshan halka ka bilowdan baa beer wanaagsan cidii wax qabsanaysana inaan waxaan diyaar u nahay inaan la qabanno annaguna xukuumad ahaan waxa yaalo wixii awoodayada annagoo la kaashayna hay'adaha iyaga diyaar baan idinlanahay hay'adda WH markaad meel baxayaba waxa aragtay WH way la socotaa waa hay'adda noogu nugul wax badan gobolka nagala qabata iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa haddaynu aftaxoon ilahay deegaankan wax baanu ka qabanaynaa ceel biyoodna labada sano gudahood waa noo qodaynaa aad baan ugu amaanaynaa. waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha. halkani waa Buurama Cable waxaad nagala socotaan waa page-keena Facebook iyo YouTube fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Facebook-ka soo follow garee haddii aad YouTube-ka ku cusub tahayna subscribe soo saar muuqaalkan qof kastoo sii like gareeya sii la share gareeya waxaan u haynaa xushmad aad u ballaaran.